halkan aad arkaysaan daawadayaal waa magaaladii Boorama oo caawa qalalaase magaalada gibi ahaanba afarteeda kooneed dab ka baxayo oo ka bilaabmay qalalaasaas wuxuu salka ku hayaa kadib markii ay xukuumadda Soomaaliland ogolaatay buugii xeer ciise in lagu qaban doono magaalada Saylac sidoo kale waxa hadlay hadda ka hor ugaaska beesha Gadabuursi isagoo oo si adag uga hadlay ama meel adag iska taagay go'aanka magaalada Saylac loogu ogolaanayo xeer ciise in lagu qabanayo sida in hore ogeyn ugaasku waxa uu ka hadlay beesha uu ka soo jeedo go'aankeeda ama go'aanka uu ka sito beesha uu ka soo jeedo oo waliba si kalsooni leh u hadlay waxa uu sheegay in aan taako dhulka Gadabuursi leeyahay ogolaan doonin bal haddaba dhul Gadabuursi leeyahay oo la bixinayo ma jirin balse waxa la isku hayay gobolka Selel iyo xeer ciise waa lagu qabanayaa iyo lagu qabanayo ugu dambeyntii xukuumadda Soomaaliland waxay ogolaatay xeer ciise in lagu qaban doono magaalada Saylac iyadoo ay marka horeba muddadii ciise uu ku ballansanaa ay ka harsanayd hal maalin afartii bisha waxay dawladuna ku dhawaaqday in lagu qaban doono xeer ciise magaalada Saylac haddaba magaaladii Boorama oo caawa dhalinyaro ka dab shidanayso rasaas iyo alalaase ay isu bedeshay gebigeeduba dab baxaya maxaa laga filan karaa aruurta maxay noqon kartaa ugaaskii sabaroon hadalkiisii muxuu noqon karaa ma go'aan uu ka sitay beeshiisa iyo kalsooni mise waxa uu noqon karaa dejin xaaladda dhalinyarada ee markii horeba ka taagneed magaalada Boorama Saylac ma lagu qaban karaa buugii xeer ciise intaas labada beelood ee sabaroon iyo ciise dhexdooda waxa ka soo bixi kara sidoo kale Soomaaliland go'aankii ay hore u qaadatay maxay kaga maarantay ee go'aankan dambe u soo saartay balila daawo magaaladii Boorama iyo magaalada Boorama ayaa faraha ka sii baxaysa daawade shacbiga ayaa ilaa iyo hadda ku sugan suuqyada iyo isgoysyada waaweyn ee magaalada Boorama magaalada Boorama ayaa faraha ka sii baxaysa daawade shacbiga ayaa ilaa iyo hadda ku sugan suuqyada iyo isgoysyada waaweyn ee magaalada Boorama
xaaladda magaalada Boorama ayaa faraha ka sii baxaysa daawade shacbiga ayaa ilaa iyo hadda ku sugan suuqyada iyo isgoysyada waaweyn ee magaalada Boorama magaalada Boorama ayaa faraha ka sii baxaysa daawade shacbiga ayaa ilaa iyo hadda ku sugan suuqyada iyo isgoysyada waaweyn ee magaalada Boorama magaalada Boorama ayaa faraha ka sii baxaysa daawade shacbiga ayaa ilaa iyo hadda ku sugan suuqyada iyo isgoysyada